ku wadaagaan waxa la ii soo diray warbixin ah inay biyo fadhiyaan sawirradii waa la ii soo diray inaysan diyaaraduhu ku degi karin oo ay ku simbirixoonayaan waxaan ku sugannahay garoonka diidaha ee magaalada Beledweyne halkaas oo magaaladan maalmihii la soo dhaafay roobab iyo fatahaad ka dhacday ay sababeen inay istaagto noloshii dadweynaha gurmad ka yimid madasha xisbiyada qaran ay hogaaminayaan madaxweynayaasha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa halkan soo gaaray dhanka kalena war ka soo baxay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Goordhow waxa uu ku sheegay in garoonkan diyaaradaha ee magaalada Beledweyne oo aan hadda ku sugannahay diyaarada aysan ka degi karin qatarna ay gelisay diyaaradda qaaday madaxda uu ka mid yahay madaxweyne Sheekh Shariif iyo sidaas oo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku micneeyay in garoonka aysan diyaarada ku degi karin laakiin daawade adoo soo raacaya sida ku muuqata guud ahaan garoonku xaaladiisu waa mid degan marka loo eego runwayga halka loo yaqaan ee diyaaraddu loogu talagalay inay ku soo degto ama ka kacdo loogu talagalay diyaaradda wax la yiraahdo maaragtay taayiradeeda inaysan dhiiqa haleelin saadaradeed inta aan hadda marqaati ahaan inagu arkayno garoonkan tusaale ma qoyana wuu adag yahay caadiyan saadaradeed waxa la isweydiinayaa hadalka madaxweynaha ma wuxuusan ka warqabin deegaankii uu matalayay gaar ahaan magaalada Beledweyne xaalkeeda mise hadal aan ka fiirsi lahayn ayuu ahaa hadalkii ka soo baxay ee uu ku sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne biyo dhex cigaagaan waa hagaag iminka waxa la filayaa in wafdigu uu Muqdisho u duulo waxaana sida qorshuhu yahay Goordhow ay la hadli doonaan qaar iyaga kamid ah madaxda madasha xisbiyada qaran warbaahinta